الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما توحينو ايغينا حبكيبان ugu duubi kara markaasi WordPress anoo markaasi raacaya talaabooyinka hadda soo socda okay ugu horeen waxaynu ugu duubaynaa in aynu tagno markaasi website-keena dabeete markaasi aynu ku qorno xagan Google aynu sam ku qorno dabeete waxaynu galaynaa markaasi sam installer ama download-ka ayaan ku dhufanaynaa dabeete saas waxaynu ku galaynaa markaasi in aynu dejisan karno simply last version kii ugu dambeeyay inaynu markaasi dejisan karo 7.1 ay jirta oo markaasi kan Windows-ka ayaan dejisanayna dabeeto waxay noo soo boodiyay markaasi Windows-kii daaqadan ayay noo soo boodi doonta dabeeto xoogaa yar baan sugi doonaa waa soo boodi doonaa markaasi IDM-ku si markaasi aanu helno this one waa 123 MB saasaad ku dejisan kartaa markaas waan dejistay okay seven WordPress ku hadlaya waxaan galaynaa markaasi wordpress.org oo download ayaan ku dhufanaynaa dabeet xaga waxaad heli kartaa oo last version oo WordPress 4.8 hore ayaan u download gareeyay markaasi adiga simply waa 8 MB daqiiqadaas baad ku download gareysan kartaa okay haddii intaan ka soo gudubno ugu horeyn waa inaad marka ugu horeysa uu kugu jiro computer-kaaga Zam oo ah markaasi software-ka aynu soo download gareysan kaasoo noo isticmaalana server because waxa weeye san wadagsanahay WordPress-ku waxa uu ku dhisan yahay PHP-guna la'aantii server kuma rangareysmayo without server ma rangareysmayo saas awgeed waa inaynu Apache-heena aan helnaa oo Apache-heena uu noqdaa markaasi mid rangareysan MySQL-kiina waa mid rangareysan waa noqon markaasi WordPress-kan uu noo noqdo markaasi mid noo shaqeeyo oo aan ku dhisan karno local website okay ugu horreyn marka waxaan sameynayaa waa kan folder-kaygii this one extract baan siinayaa oo waxaan ka saarayaa markaasi file-kayga wirarka ah dabeeta desktop ayaan dhigi doonaa okay xoogaa settings yar baan sigay hadba computer-kaaga ay ku xidhan tahay sida uu fudud yahay dabeeta inta marka aan sameeyo waxaa xaggan ii yaala markaasi file-kii oo WordPress-ka ii yaala markaas simply si aan markaasi xagga marka aan geeyo way file badan oo tijaabo ama example ku bixiyay yaala right click si markaasi kan oo rename ama waxa tameysaa si uusan kaaga xumaanin control Z dabeeta control pass oo markaasi feed okay xoogaa yar baan sugaynaa file-sha markaasi duplicate noo noqonaya dabeeto dhinacan ayuu noo dhigay kan ayaan markaasi qaadanaya kaasi waxaan u reebtay markaasi dhowtoole inaan isticmaalo inaan extract order folder-kaas ay biyaalaan hadda waxaan isticmaalayaa kan marka uu dhamaado okay kan waxaan u bixinayaa markaasi website-kayga bixin tusaale waxaan East Africa University baan odhanayaa okay kan file-kayga hadda waxaan qaadayaa in aan geeyo location-kii aan rabay markaasi inaan ku install okay copy baan siinayaa ama cut baan siinayaa saan marka dambe markaasi usoo cut waxaan tagayaa markaa computer-ka ayaan tagayaa meel kasta marka ama isticmaal ama tan isticmaal ama meel isticmaal waa inaad computer-ka tagtaa dabadeed markaasi waxaan tagaynaa sida oo samka noogu duuban yahay waa kan zam keeni dabadeed samka waxaan ka sii tagaynaa click waxaan tagaynaa markaasi htdoc marka aynu tagno waxaan xaggan ayaan hadda ku baas gareysanaa file-keeni ogsoono waa in uu ka duwanaadaa magacyadan meeshan yaala oo different oo noqdo hadii kale wuxuu noqonayaa markaasi in ay markaasi file-shu ay noqdaan kuwa isdiida oo ku dhacdo markaasi file-kan hore ayuu sii jiray okay file-keena waxaan u bixinay East Africa ayaan u bixinay waa xagga hoose yaalay nadarkaysan mooyaane waa kan file-kayga hadaba waxaan u yeelaynaa markaasi file-keena okay kuwan iska xidho kan iska xidho okay kuwan iska xidho dhamaantood okay iska xidho okay waxaan marka ugu horeysa soo sameysanayaa database baan soo sameyn marka waxaan galayaa localhost samkayga saan kalo all version baan isticmaalayaa PHP my admin baan galaya markaasi okay dabadeeto xaggan waxaan ku qorayaa password iyo khaasa markaasi user password okay password-kayga marka aan galiyo okay password-kayga ayaan galiyo markaasi go login gareynayaa manaa waxaan abuurayaa hadda database-ka ayaan abuurayaa ugu horeyn waayo wuxuu caqabad iga dhigay waa maxay waa database-ka ayuu caqabad iga dhigay marka database-kayga ayaan gelinayaa oo waxaan oranayaa markaasi aad waxa suuragal markaad localhost qorto PHP admin tidhaahdo in wax password uusan ku weydiin sababta password hore ugu madaxna haddaad ku xidhatana password ayuu ku weydiinayaa marka waxaan gelinayaa sidoo kale example EAU same waxaan ka dhigayaa saan u xasuusta markaasi EAU baan ka dhigay markaasi database-kii
okay create only intaasaan uga baahanay markaas inaan abuurno wax table ma abuurayno waayo hadda wax table nooguma jiro sida arkaysan database-ka EAU dabeet waxaan imanaynaa markaasi kan imanaynaa waxaan furaynaa localhost dabeeto backslash baan taabanayna dabeeto waxaan u yeedhaynaa markaasi folderkeeni oo markaasi ah EAU oo markaasi folderkeeni folderkan ka hadlaya wax kale maaha waa folderkan hadda ku dhex jiro localhost markaad tiraahdo waxaad u yeedhaysaa folderkaaga namekiisa haddii aad qalad hadhow toolay wuxuu ka odhanayaa ma xaqiiqin karo macnahaas inuu ku jiro meesha okay waynu markaasi raadinaynaa searching baynu diraynaa enter baynu siinay sidii internet u jiro waayo waxaan isticmaalaynaa waa maxay waa local baan isticmaalnaa ugu horey wuxuu ku yidhi welcome to WordPress before getting started need some information database name username password database usd iyo tail prefix waynu haysanaa namekii database-ka oo waynagan soo samaysanay waxaan usoo bixinay EAU baynu soo bixsanay sad arkaysaan waxaan kaloo la haysanaa username iyo password haddii aad password aan ku lahayn meesha waad badin karaa okay let's go waxaanu gelinaynaa markaa xaggan EAU oo database-keeniya userkeygi baan xaggan gelinayaa root example passwordkii baan xaggan gelinayaa okay haddiina password ku lahayna saas okay localhost waa isaga hosti ayaad isaga ku dhaafi doontaa table prefix-kuna waxa table-ka horgeli doono wax kasta ka dhigaysa whatever okay submit baan odhanaynaa dabeeto xoogaas wuxuu nidhi database select okay database-ka markaan namekeyga khaladnay xoogaas waxaan kusoo noqonaa markaasi database-kii waxaad arkaysaa nameka waxbaa inaga raacay okay saasaan copy garaysaan markaa sample this one saasaan copy garaysaan okay copy waxaan kusoo noqonaa xaggan database-ka okay saasaan odhanay macnaha fileka iyo qoraalka ayaa baa iga raacay database-ka okay passwordkii baan gelinayaa okay waxaan sameynaya markaasi submit baan odhanayaa this one waa ku duumay macnaha database-kaaga iyo database-ka waa inay noqdaan same names macnaha say xarfo isku mid ah waayo waa case sensitive markaynu leenahay WordPress xagga database okay run install waan ku duumnay ugu horeyn muhiim waxa ah inaad isticmaali karayso ama xasuusan karayso passwordkaaga xaggan haddii aad ilowdo hadhow toole markaasi encrypted weeyaan passwordka xagga jiro hawl ayuu kaa qaadanay marka muhiim waxa ah inaad waxaad xasuusan karayso user ka dhigato okay site title-keena waxaan ku dhiganaa East Africa University campus Buhole okay username waxaan ka dhigay admin okay kan uu ii sameeyay strong uma baahni admin uma baahni markaa mar hadduu local yahay waan ka masaxaynaa markaas admin delete-ka xoogaas yar raacinay admin very weak weeyaan okay confine baan leenahay email sample waan gelinayna markaasi okay xasaam markaasi 5 emailka gmail.com okay waxaan isticmaalaynaa ogsano waa local kan score search engine-ska waad ka dhaafi kartaa install bayna odhan hadda waa admin iyo admin ha ilaawin passwordka waa admin iyo admin okay install xoogaas simply waa daqiiqad baynu waxaynu ku dhisi karnaa markaasi website dhammaystiran oo wax walba aynu soo gelin karno oo markaasi ascending-kii iyo descending-kii labadaba ah oo warkii ugu dambeeyay oo soo galay okay waxaan soo galinaa gudihii this one gudihii baan soo galinaa waxaan ku jirnaa waa maxay web admin waa markaad doonaysa inaad gasho adminka web minus admin okay admin iyo admin username let's login soo gala okay admin iyo admin waxaynu ogsoonahay WordPress-ku inuu yahay luqadda ugu blogiska ugu ballaaran ee la isticmaalo marka loo eego Joomla iyo Drupal-iska waana mid open source ah meel kale this one gudihii ayaan hadda ku jirnaa waxaan la isticmaali doonaa waa postiga media pageska commands-ka appearance-ka blogs-ka users-ka iyo tools-ka iyo settings-ka inta badan waxaan awood u leenahay inaan aragno markaasi site-keeni oo isaguna xaggan aan ka furi doono this one site-keeni waa kan website-keeni aan hadda sameynay wax qoraala ma yaala hello wall bartaala ama hello bayala WordPress computer ayaa ugu dambeeya hello wall ah okay
marka kan hadhow toole waynu qurxinaynaa minaa waynu habaynaynaa qaabkeenu isticmaalaynaa khadab waa simbali sal loogu duubo waa anigoo ini leh assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu